الله أكبر الله أكبر الله أكبر دين وحشقة كل يوم لماركو محيط دين تشجعيان إن شباب أسبوع عن جديد قبل كشباب هذا حلقة صاروا لقنا حرين حد يقول مدقول لابتان لقى دبل لابتو الله ده وراد عرض إنه أنا وقت جاني إنا كهرين وحلي كل الواي وأباري لبضو إلهي بالله جبر يا إنه إلهي والله وش هي قطره تذكر أبار هيسي كسو دولين شباب halkaas waxay cadeynaysaa in diin lahaan ay yihiin qawaarijtaas dadka deegaanka ee dhulkan shabeellada dhaxa ku nool waa garan karnaa halgankii ay gasheen isa iskaga saarteen adinkoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la iskaashanayo oo aad qawaarijtu 12 sano ay haysatay labadii sano ee xoogaaga ay deegaanka ka maqnaayeen faa'iidada la helay waa qiyaasi kartaan iyo xorriyadda la helay haddana waad aragteen deegaankii bay ku soo laabteen waxay u socdaan waa naftiina maalkiina iyo guriyiina qof hadda shabaab wax ka haya miya jiro halkan fadhiyo xoolo iyo dhul iyo deegaan waxa ka haysan miya la arkaa gabdhihiina rabaan xoolihiina rabaan guriyiina rabaan de qofka islaamka aan diisnimo laga rabo waxa la rabaa qoryaha waxa u qaadateen waqtigiina u doorateen inaad iska dhicisaan shabaabku anaga waxaan ka nimid si odayaashu sheegeen 700 kilomitir meel jirta u nimid waxa u nimid waxa waaye shabaabkii la kala gooyay ee go'doonka ahaa iyo kii koofur jiray inaysa isku xirmin arintaas marka arina wada saameynaysa waa nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu qofka muslimka haduu jirkiisa meel ka xanuunsado qof kale walaalka waa inuu jirkiisa uu xanuunsada dadka inta la eeg deegaanka inta la eeg in qawaarij looga tago sax maaha halkan beesha fadhido iyo dadka deegaankan ku nool waxaan ka rabnaa in qawaarijta la iska celiyo diin wax shaqo ah ay ku leeyihiin lama arko waxaan u maleynaa 14 sano halkan joogeen shabaab dad dugsi u qabto quraan u dhameeyay ma aragteen culummo ay aflixiyeen oo diin bareen ma aragteen maxay tahay diinta sheegayaan horta moogta ilaa laga baqaal rabaa ya 14 sano idin la joogeen dad la leeyahay culummo waaye shabaab soo diin baray ahkaantii yaqaanaan shariicadii yaqaanaan ma aragteen kuwa dugsi u dhameeyay ma aragteen qofku waxay baraan sidoo qof u dili lahaa bas diintoodu waa halkaas qof muslina in laga argagixiyo oo la dilo oo la baabi'iyo waa markaas waxay leeyihiin islaamka u shaqeynayna islaam uma shaqeeyaan magacay ku shaqeystaan magacay ku qaraabtaan waxa la rabaa inaad iska dhicisaan al-shabaab iyo shayaadiinta iyo qawaarijtaas sida ragga odayaasha hore u sheegay nabigeena kaleey salaatu salaam baa sheegay qawaarij qofkii dilana waa ahlu janna qofkii dilana waa ahlu janna nimankaas waa shayaadiin dhulka Soomaaliyeed ayaa waxa loo soo diray inay cadow gacanta u geliyaan oo dadka barakiciyaan oo jannabi iyo waxaan la aqoon iyo shaqaysanay nimankaas waxaan rabnaa dadka halkaan maanta isku yimid ilaahay baa abaarta naga saaray ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob madara uu noo keeno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado cadowgaas adinkana inaad sugnaataan oo aad iska dhicisaan oo godadka u gashaan warnimaan dhulkii aqoonin oo meelo shisheeye ka yimid caawa haddii la isku daro shabaabka afarta tuulo iyo joogo inta u dhaxayso alkawsar dadka shabeellada dhexe ee la jooga 20 qof ma dhamo oo deegaanka u dhashay adinkoo deegaanka u dhashay sidee u dhex joogi karaan oo tubaha yaqaano oo luuqaqa yaqaano oo geedaha yaqaano oo caawa in xabado ku soo ridaan biri inta ka goyn karo oo booyada ka gubi karo de saxba ma ahanba intiinaana aad dhibaateen karto arintaas gudnimay noqonaysaa shabaab inuu si dhex joogo waxaan codsanaynaa waxa waaye in gacmihiina ay ku suulisaan dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in idin kaalmayso ayada u taagan inay rasaas iyo wixii dhaawacma iyo wixii ma aragtay farsamo oo dhan odayaasha laga hadli doona haduu alla yiraahdo arintaas waxa noo ballanaa in shabaab isbuucan gudihiisa gobolka shabeellada dhaxa laga saaro lagana harin haday gudbaan laga daba gudbo haday galmudug u laabtaan laga daba laabto oo aan la dheen waraad caradeena waa nooga tageene ina ka harin qof kale walaala ay dhibaato ku hayaan marka aad u mahadsantihiin waa idinku dhiirigelinaynaa amalka wanaagsan oo aad haysaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu idin xafido oo cadowgaasna ma aragtay uu naga guuleeyo aadaan u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh